nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay nebi ayuub oo xanuunsaday oo 18 sano bukay oo dadka intii u dhoweyd iyo intii ka fogaydba ka tageen laba nin oo asxaabtiisii ka mid ah kuwii ugu dhadhowaa iyo haweenaydiisiiyo wax la midi ku soo hadheen oo maalintii dambe labadii nin ay iyagii isweydiiyeenoo mid yidhi taclamu wallaahi laqad adnaba ayuubu danban maa adnabahu axadun min alcaalamiin waxaan u malaynayaa ayuub buu leeyahay inuu dembaabay dembi aan dunida qof joogaaba dembaabin 18 sanuu jiifay kii kalea yidhi wamaa daak maxaad waa maxay waxa ugu malaysay qaala mundu 18 sana lam yarxamhu allah buu yidhi 18 sannadood ilaahay uma naxariisan oo lagama qaadeen xanuunkii markii labadaa nin ay warkaa isu sheegeen kii loo sheegay baa soo socday oo nebi ayuubu sheego wuxuu yidhi saasaa la sheegayaa ayuub baa wuxuu ugu jawaabay laa adri maa taquul gayra ana allaha yaclamu annii kuntu amuru cala arajulayni yatanaasacayni fayadkuraana allah faarjicu ilaa beyti faukafiru canhuma karaahiyata an yudkara allahu ila fii xaq waxaa sheegaysaan inuu garan maayo buu yidhi haddaan soo maro laba is haysta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan xusi jiray oo waxaan samayn jiray inaan wax bixiyo anigoo necbaysanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala si xaqa mooye si kale inaan loo soo hadal qaadin calaa kulli xaal ilaahay subxaanahu wa tacaala markii dambe waa u waxyooday oo wuxuu ku yidhi urkud birijlika hada muqtasalun baaridun wa sharaab qisadatan waa qiso waxoogaa dheer laakiin waxaan uga dan leeyahay uun waxa ay tilmaamaysaa inaanay ciqaab wada ahayn waxaa loo yaqaanaa ibtilaa'aadka dadka ku dhaca laakiin ka mas'alata shari markaynu si guud u eegno allah huwa alcaliimu alxakiim ilaahay wuxuu isku sifaynayaa inuu cilmi badanayay wax kasta ma'aalkood iyo say u socdaan iyo si walba inuu ogyahay inuu xikmad badanayo shay walba halka ku habboon uu dhigo bini aadamku laakiin dunida ma wada oga mustaqbalkana garan maayo si guudna waxuma arki kara waa indha ku garaadlo intuu markaa arkayo unbaa u muuqata xataa malaa'igtii markay garan waayeen nebi aadam xikmaddii loo keenay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu imtixaamay waxay ku jawaabeen subxaanaka laa cilma lana ilaa maa aclamtana innaka anta alcaliimu alxakiim ilaahu adaa cilmi badan oo xikmad badan bay leeyihin intii aadna bartay mooyaane in kale garan mayno erayga xakiimi qur-aanka in badan buu ku soo arooray waxaan uga dan leeyo ibtilaagu wuxuu iman karaa lirafci darajaat wa icdaami lujuur qofka oo darajadiisa ilaahay rabo inuu kor u qaado ajarkana loo buuro sida inta badan imtixaanaadka ambiyada qabsada iyo dadka akhyaarta wuxuu kaloo u yimaadaa litakfiiri sayi'aat qofka oo dembiga ilaahay rabo inuu kaga maydho wuxuu kaloo u yimaadaa isagoo cuquuba mucajala ah ciqaab la soo horumariyey ahlu macaasiga la ciqaabayo iyo markay mubaadara u samayn waayeen inay toobad keenaan wuxuu kaloo u yimaadaa lilibtilaa'i waatamxiis dadka in lagu kala sooco oo khafaaya nufuus kor loo soo saaro oo dadka munaafiqiin iyo mu'miniin iyo dadka wanaagsan iyo dadka xun ilaahay ku kala sooco wuxuu kaloo u soo arooraa bay culammadu yidhaahdaan litarbiyati alrijaali min xuduudi anfusihim dadka oo laga rabbaynayo naftooda waxyaabaha ay jeceshahay oo bini aadamka sida ilaahay u abuuray subxaanahu wa tacaala waxyaabo badan oo in laga koriyo uu u baahan baa jira waxaa kaloo uu soo arooraa litadkiiri almuncim
ilaaha subxaanahu wa tacaala nicmada badan le inuu dareesiyo dadku markay nimcadu joogto iska noqoto waa ilaabaan ilaahayni iyo nimcadiisa waxay xoog u xasuustaan markaa dhibtu timaado wuxuu kaloo u soo arooraa bay culammadu yidhaahdaan liihbaati alxujati cala annaas dadka cilmi daahira si uu u muuqdo oo aakhira aanay u helin marmarsiinyo oo xujada loogu ogo intay dunida joogaan wuxuu kaloo u soo arooraa litadkiiri almudnibiin kuwa habowsan inay bal rabbi xasuustaan oo marka mashaakilku qabsado ee ilaahay subxaanahu wa tacaala dib u soo xasuustaan iyo walitanbiihi alghaafiliin غفلدوا ضدك كل عضي إنه توبت كينا ويفل أسل في الإنسان بيد هذان التقصير بأصله